nebi ibraahim abulambiyaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markay dadkiisa dhibeen wax kasta uu sheegay ay diideen naarta ay ku tuureen uu go'aansaday inuu soo haajiro innii muhaajirun ilaa rabbii sayahdiin asiga iyo xaaskiisa saara iyo wiilku adeerku u ahaa nebiyullaahi luud isoo raaceen halkay imaadeen hijraday soo hijroodeen halkii u soo hijroodeen dhibaataday soo mareen maxay tahay sidii ku soo gaareen meeshii rabeen nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ambiyada kale walaalihiisa nebiyaasha kale ilaahay muxuu dheeraysay maxaasi gooni loo siiyey ilaahay subxaanahu watacaala caqligiisa ayuu ammaanay ما ضل صاحبكم وما غوى carabkiisuu ammaanay لا ينطق عن الهوى qalbigiisuu ammaanay ما كذب الفؤاد ما رأى indhihiisuu ammaanay ما زاغ البصر وما طغى laabtiisuu ammaanay نشرح لك صدرك wuxuu ammaanay xilmigiisa naxariistiisa raxmadiisa المؤمنين رؤوف رحيم macallimkiisa oo jibriil ayuu ammaanay علمه شديد القوى asxaabtiisuu ammaanay والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ilaahay asiga dhanuu ammaanay وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا درس جامع الدنيا كجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة أفراد أو إهيت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ولا ليال حلقة لصودا في وحان كسو شاكيني نبي إبراهيم يقوم كيسي وحيد حمرين ما أنتنا إن شاء الله تعالى وحان كشيكينينا نبي إبراهيم قوم كيسا markii albaab walba soo xirmay uu go'aansaday inuu soo hijroodo uu soo baxay asiga iyo xaaskiisa iyo wiilku adeerku ahaa waddo dheeray soo qaadeen si u soo socdeen waxay imaadeen masar halkay ka soo haajireen mataqaanaa ciraaq waxay imaadeen masar imaadeen masar waxaa joogay marka nin fircawn dhaqankiisa wuxuu ahaa gabar kastoo qurxan oo waddankiisa soo gasho inuu asiga reebto waxaan halka ahayn gabadhii walaalkeeda la socdo uma dhawaanaynin ninkeeda hadduu la socdo wuu ka qaadanaa aabbaheed hadduu la socdana wuu ka qaadanaa wiilkeeda hadduu la socdana wuu ka qaadanaa dad kastoo la socdo wuu ka qaadanaa waxaan ka ahayn walaalkeeda nebi ibraahim wuxuu maqlay marka arrintaas laba riwaayaa jirto riwaayada koobaad oo rasuul sallallahu alayhi wasallam ka sugnaatay wuxuu leeyahay marka hore waxay arkeen fircawn iyo nebi ibraahim ee is arkay oo wuxuu ku yiri maxay ku tahay markaasuu yiri walaashii waay kadib nebi ibraahim xaaskiisu u yimid oo wuxuu ku yiri ninkii gaalkii waa is aragnay oo waxaan ku dhahay waa walaashii ugu arrintaas ay beeninin nebi ibraahim markaa wuxuu ku daray wuxuu yiri wallaahi laa a'lam ma garanayo على وجه الأرض أولك دن إنو جوغ قف موحد أو أنيق عديق عن كأهين لا إله إلا الله أولك إنتان لأك ملايين تكون ولايين بني البشر إليه وقوض كفرية أبو الأنبياء الله صوته مركب صار وحاو يري فرعون ويري مركو أركي وحو كيري يا وينك كل الصعوبة markaasi waxay ku tiri waa walaalkii laakiin gaalada ama mujrimiinta caqdigooda ama ballantay qaadaan ma uufiyaan hadday arkaan wax ka baxsan arrintii annagoo kale muslimiinta maahnu uufu bilcahdi loola dhahayo aayat almunaafiq 3 idaa xadatha kadab wa idaa wacada akhlaf ballan hadduu qaada ka baxaayo annagii qawaaniintaasna qabata laakiin gaal qaanuun ma qabato zamankan ba fiiri hadduu wax maslaxadiisu arko wuxuu kula meesha maslaxa jirta maahin wax kale ma jiro maslaxada wadankiina wax walba u sameeyna ku shalay saaxiib ahay maanta cadow noqonay ku cadow ahayna uu saaxiiba gaalkii markuu arkay quruxdeeda wuxuu yiri waaba ishayn waayba gacanta u soo taagay soo ka haysto way inkaartay marka ilaahu iga qabaytay
gacantiyaa ka shalalowday waxay ka noqotay qaleelay ka noqotay wuu naxay marka wuxuu ogaaday tan inay tahay mid ilaahay ka baqayso markaas wuxuu yidhi ilaahay ii bari ballankaa qaada kuma dhowaanaye ilaahay u barisay gacanta caadi usoo noqotay isla marka dan mar labaad gacanta ku taagay fiiri waa markii labaad way qallashay markaas wuxuu ku yidhi ilaahay bari mar kale ma samaynayo ilaahu barid waa loo soo celiyey mar saddexaad gacanta ku taagay haddana way qallashay markaasuu yidhi ballan waaye ii bari inaan kuu dhowaanaynin ilaahay u bareeday gacanta caadi usoo noqotay ninkii u keeno u yeeray wuxuu war iga kaxeeya waxaa ii keenteen shaytaana ii keenteen dad iima keenin waddankayga dhan ka saar u dhah haajarana siiya hay dhaafto nebi ibraahim markay xaaskiisa soo baxaysay u imaanaysay isla markii muxuu sameeyey salaada u istaagay lana qofka markii dhibaato ku dhacdo waxaa loo baahan inuu ilaahi u jeesto salaadu u istaagay iyadoo salaadii uu ku jiray ilaahu baryaayay saaroo socotaa imaatay markaasi wuxuu ku yidhi haye arrinta ka waran markaasi waxay ku tiri ilaahay cadowgii wuu jibiyey shaqaalana wuuna soo siiyey nebi ibraahim wuu farxay marka xadiid arrintan waxaa noo sheegay xadiid saxiix ku jira abu hurayra warinaayo xadiidka soomaaliya ku sheega rasuul sal alay wasalam wuxuu yidhi nebiyullaahi ibraahim 3 been ayuu sheegay 2 ilaahay dartiisay ahayd midna waxaa waay saara ajligeeda u sameeyey tan koobaad waxay ahayd uu yidhi markii lagu tuuray oo qabriga oo lagu sanamada uu jijibinayay wuxuu yidhi innii saqiim ilaahay dartiisay ahaydoo innii saqiim waa xanuunsanahay tan labaadna markii uu sanamadii jibiyaa sameeyey facalow kabiiruhum hada fas'aluu in kaanuu yantiquun labadaas waxay ahayd ilaahay dartiisa ahayd midda saddexaadna wuxuu yidhi waa saara markii la weydiiyey uu yidhi walaashii waa si haddii loo dhigo walaashiis oo muslim waana walaalishiis waaye marka xadiid dheer waa saxiix albukhaari ku jiro abu hurayra uu warinaayo abu hurayra markuu qisada dhameeyey kadib wuxuu yidhi haajar marka waa ummukum hooyadiina waaye ogaada nabiyullaahi ibraahim iyo haajar iyo saara ay noqdeen hadda waa soo baxeen marka waa soo baxeen oo si u soo socdeen waxay masar khalaas waa ka soo tageen intay aadeen meesha adduunka hadda isku haysto waa quds falastiin ardi shaam dhulka barakaysan nebi ibraahim wuu soo baxay suu u soo socday beyt almaqdis oo yimid masjidka ma dhisna markaas markuu yimid kadib saara iyo asiga iyo haajara isla socdo saara waxay ku tiri ninkeeda marka ibraahim waxaan rabaa inaad guursatid gabadhaan haajar anaa liisoo sii shaqaale ahaawo adaan ku siinaa guurso maadaama aniga aan wax kuu dhalin nebi ibraahim hadalkeeda wuu qaati waayahuu yidhi nebi ibraahim haajar uu guursaday markuu guursaday haajar uuray qaaday saara uur ma lahan laakiin haajar uuray qaaday saara maxaa galay marka gabar aad u qurxanna waa ahayd laakiin awlaad ilaaha gacanta ku haaya saara waxaa galay maseeraa galay marka waxay go-aansatay marka haajar inayba dishabo dumarka markay maseeraan saas waaye waxay go-aansatay inay haajartan ka takhallusto haajar uuray qaaday tartiibay isu markay wiil dhashayne haajar khalaas waaye meesha u dambaysay tagtay ismaaciilay dhashay saara waxay go-aansatay biayi ariiqa inay haajar ku disho nebi ibraahim marka wuu ogaaday nebi ibraahim ilaahuu baryay nebiga waa loo waxyooday waxaa la yidhi marka haajar kaxay saara maadaama ay masaarsan tahay haajar kaxay aa lagu dhahay intee geynaysaa saa u wadid waxaa geynaysaa layidhi makax meel la yidhaaho oo geedku oona iska dhaaf ibni aadane geed kuma yaalo hal geed kuma yaalo waa dhul saxra oo bannaan nebi ibraahim calayhi salaam iyo xaaskiisa haajar siday u soo haajari doonaan waddaday soo mari doonaan waa halkay imaan doonaan dhibaatada ku dhici doonta maxay tahay haajar iyo cunugeeda maxaa gaari doono su-aalooyinkaas dhanna waxaan ka jawaabaynaa insha allah tacaala xalaqada soo socota isniinta soo socota ee waxaa noqotaa qofka ugu horeeya khayr allah ku siiyo ma rabin aan kugu dheeray insha allah tacaala waa inuu isniinta soo socoto iyo
xalaqadii kale oo aadka u qiimo badneed oon ka bilaabinaysa hijrada nebi ibraahim, xaaskiisa haajar iyo cunugiisa ismaaciil ilaa isniin soo socota laga gaaray. waxaa lagaa rabaa inaad dhegaysatid, ka faa'iidaysatid oo ku camalfashid kan iyo kuwii horabo walaalaha kalena usii gudbisa agtaada istaagin siirada xabiibkaaga. khayr allah kuso jazaakum allahu khayr, baarak allah fiikum. ilaa darsiga jeclahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.